ardaydii dadaalka iyo juhdiga dheeraadka bixiyay ee ardayda ka galay kaalmaha ugu horeeya waxaanu leenahay waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu doonaynaa insha Allah inaad halkaa ka sii wadaan ardayda kalena ay idinku daydaan oo iyaguna ay dadaal la mid ah ay sameeyaan oo ay noqoto halkan waxa weeyaan kaalmaha hore waayo meesha lagu dagaalamayo arday kasta uu doonayo inuu markuu muujiyo awoodihiisa iyo akhriskiisa laga helo magaciisa iyo waxa weeyaan dadaalka uu bixiyay kullay kelmadaydu waxay noqonaysaa waa dhiirigelin waa kelmad iska golofuula waxa muhiima qofku wax kasta uu bixiyo waa uu ka midho dhaliyaa ardaygu dadaal kasta uu bixiyo waa inuu ka midho dhaliyaa adduunyada waxay yiraahdaan boqolkiiba 3 ayaa waxay gaaraan guulaha boqolkiiba 97 kalena waxa weeyaan ma xaqiijiyaan guulaha adaba ardaydaasi ama dadka boqolkiiba waxa weeyaan 3 wax xaqiijinaya hadafka ka hor intayna gaarin waxay sameeyaan meel ah buura ama nuqdo ay doonayeen inay xaqiijiyaan markaad hadaf leedahay aad leedahay khudawad hadafka loo marayo talaabooyin loo marayo inaad xaqiijiso hadafkaasi ayaa waxaad gaaraysaa waxa weeyaan ujeedadii aad lahayd waxa la yiri 99 waxa weeyaan dadaalku qofku bixiyo 99 boqolkiiba waxa weeyaan uu xaqiijiyaa boqolkiiba halna waxa weeyaan ilhaam rabbaani weeyaan waana halkay ardaydu ku kala tagaan waxa laga yaabaa laba arday mid kastaba dadaalkii ugu badnaa waxbarashada inuu bixiyay laakiin haddana waxbarashada waxa laga yaabaa tartankii hal arday un baa ku soo baxaya waxa weeyaan kaasina 99 boqolkiiba 99 dadaalkii loogu talagalay waa bixi ilaahayna waxa waafajiyay xabadii ilhaamka waxa laga yaabaa inay wax yar guriga kaaga lumo tusaale ahaan intaad weydo si kasta aad u raadiso markii aad iska quusatay aad ka dhaqaajiso waxa laga yaabaa inay kugu soo dhacdo in ilhaan rabbaani oo lagu yiraahdo waxaad raadinaysay halkan yar dambe barkimada hoosteeda keeg dabadeetana markaas aad helaysaa iyadoo halkii taala taa kumaad keenin dadaal laakiin waxaad ku keentay waxaad ku heshay ilhaan rabbaani waxaan aad iyo aad u jecelahay waxa weeyaan ardaydaasi kaalmaha hore ka galay inay imtixaanka 4 bilood ama 5 bilood kadib aynu waxa weeyaan u diyaar garoobayna ee aynu kula tartamayno khaasatan dugsiyada hoose ee dhexe ee eerarka inay waxa weeyaan kaalmaha ay maanta muujiyeen kuwa ka sareeyo caalamiga marka loo eego maanta inaga kaalmahan waa local oo galaas iskuulkeena dhexdeedii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii xaqiiqatan ardayda ma garanaysaa ay kaalmaha gashay waxa weeyaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin balse waa intaas oo dugala sii dhawaataan murtidii de kullay waa murti oo macnaha sii dadaashaan oo kaalmaha kale ma garanaysaa waqtiyada imtixaamada kale soo socdana insha Allah aad uga sii dadaashaan waxaan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala awalan mar labaad waxaan u mahad celinaynaa maamulka iskuulka maxamed yuusuf jazakallahu khayr runtii dadaalo badan iyo ma garanaysaa nashaadaad fara badan oo kala duwan mar walba halkan ka sameeya ama u soo diyaariya ardayda aad baad mahadsantaan leenahay jazakallahu khayr xaqiiqatan sidii ustaadku sheegay ustaad xasan baa markii ugu horeysay ee ma garanaysaa ay arday imtixaanka ma garanaysaa bileedka ama shahriga jaayisad la siiyo ama xafladan oo kale la soo qabto waa wax wanaagsan Soomaaliduna hore u yiraahdeen wixii cusub caalamka jecel wixii cusub caalamka jecel waa wax cusub runtii oo wanaagsan aad ba ma garanaysaa aanu soo dhaweynayna ardayda waxaan leenahay si dadaala
waxa weeyaan lax waliba shilalka isdhigta ayaa lagu qalaabaa la yidhi lax waliba shilalka isdhigto ayaa lagu qalaa macnaha waxa weeyaan qof waliba waa siduu is yeelo xagla laaban xoolo kuma yimaadaan raggaa imaka kaalmaha galay dee iskamay gelinuun in iska galeenun ha u malayni dee way dadaaleen ilaahayna wuu waafajiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin idinkana sidaasoo kale ayaa la doonayaa inaad u sii dadaashaan ood ugu dayataan ilaa waa la isku daydaaye awrka dambe awrka hore socodkiisuu leeyahay habeedhaan soomaalidu marka waa inaad isku dayataanoo wanaagga iyo dadaalka ay sameeyeen ardaydaasi waa inaad insha allahu tacaala ilaa imtixaamadii kale waaweynaana way nagu soo socdaane aad kaga dayataanoo aad ma garanaysaayey idinkuna aad dadaalka sii lama laabtaan waxa weeyaan la kala badi oradna maaha bay yidhahaan soomaaliduyo dee waa la kala tegayaa mar kasta oo la tartamo wax kastaba ha lagu tartamo waa la kala tegayaa adduunyaduna waxa weeyaan way tartamaysaa tartan bay ku jirtaa iskuulaadkaa tartamaya tartanku wuu fara badan yahay marka waxa weeyaan inaad ma garanaysaa ayay ka midha keentaan oo nin waliba uu dadaalo ayaa la doonayaa sida wanaagsan marka imtixaanku soo dhowaado ayuunba inta badan ardaydu wax akhriyaan sidaa maaha arrinku waxa weeyaan ardaygu markan hore duruustu socoto waa inuu casharkiisa iyo duruustiisa uu la saaxiib yahay oo ma garanaysaa uu la socdo laylyada ka shaqeeyo wixii ku adkaada macallimiinta ku celiyo maxaan ku dhaha jadwalul qira'a ma wax akhris uu samaysto ma garanaysaa casharadii uu gacanta ku hayo mar walba hawshii uu wadu laazima ayaa loo baahan yahay oo marka imtixaanku gaadho uu boodhka ka yara jafo ama boodhka ka yara qaado oo waxoogaa isha mariyo laakiin haddii marka imtixaanku soo galo aad qafqaflayso dee waxa weeyaan waxba keeni maysid xaqiiqatan marka waxa weeyaan waa in aad loo dadaalo dadaalku waa muhim waxa weeyaan juhdi iyo energy iyo waqti baad bixinaysaan ma garanaysaa maal iyo mood iyo wax walba waalidkii baa idinku bixinaya marka waxa weeyaan waa in laga soo dhalaalo maxaa yeele waxa la yidhaha ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay ama madarka lama tago waa sidaa qaar kalena waxay yidhahaan soomaalidu way kala duwan tahay malaha meelaha ma garanaysaa lahjadahoodii iyo nidaamyadoodii meel ama waa laga muuqdaa ama laga maqnaadaa kuwa kale yidhaha saasay u dhigeen waana isku miduun ooda jiinsiga qaadsi waa isla ruugeen waa isla halkii marka waxa weeye dadaal baa laydinka doonayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin roob baa iska tiixaya rag kalena way iga dambaynayaan insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin maamulkana insha allahu tacaala waxa weeyaan jazaaka allahu khayr baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa runtii wax ilaahay lagu mahadiya ah inaynu meeshan isugu nimi ujeeddaduna ay tahay inaynu maamuusno ardayda dadaalka sameeyey sida gaarka dadaalka u sameeyey runtii taa micnaheedu ma aha intiina kale waad ka hooseysan micnaheedu ma aha waxaan aaminsanahay ardaydaasi imanka la abaal marinayo waxaa idinku jira arday badan oo ka maskax wanaagsan oo ka fahmo wanaagsan laakiin qodobka meesha ku jira waxa weeye ardaydan ay ku soo baxday dadaal bay ku soo baxday marka maamulka iyo macallimiintu fariin bay idin soo gaadhsiinayaan ujeeddada meeshan ku jirta fariin baa la idin soo gaadhsiinaya fariintaasi waxa weeye waa dadaala nimankaasiba dadaal bay wax ku gaadheene dadaalana laydin leeyahay oo ardaydaa kale waad kor mari kartaan ardayda marka abaalgudka la siinayo waad ka sarrayn kartaan arday aan waxaan aaminsanahay kulligiin maskax fiican bay idinku wada jirtaa kulligiin waad ka wada sarrayn kartaan ardaydaasi abaalgudka maanta la siinayo marka fariinta laydin soo gaadhsiinaya waxa weeye arday walba ha ku dadaalo ardaydaas maanta abaalgudka la siinayo inuu ka sara mara ha ku dadaalo macallimiintu waxay badanaa ay ka sheekeeyaan ardayda qaarkoodu oo kasal badani ku jiro yani wahsi badani ku jiro dadaalku ku liito waa ceeb waxaasoo kale adeer waa ceeb wey ardaygu inuu kaslaan noqdo oo arday aan shaqaysanahayn uu noqdo wax wanaagsan ma aha waxaad hada jeer madaxa ku haysaa inta iminka aad ardayga tahay waa fursad wey hadda waxa weeye shaqo laguma dirsado waalidka wax shaqo ku dirsadaa ma jiro bas wuxuu ku leeyahay waxbaro kaliya fursadda waa inaad garataa hadda fursaddaasi way tegaysaa iminka markaad weynaato nin weyn noqoto khalaas iskuul lagu dirayaa ma jiro waalidka aad wax kaa sugaya marka iminkaad waqtigii aad isdhisisi aad joogtaa marka iminkaas weliba iminka marxaladihiin inaad ku jirtaan dugsiga dhexe iyo secondary kullu
waxaad ku jirtaan marxaladii dhismaha qofku dhismay asaaska hoose u dhismay hadhow markuu jaamacadii meelaha gaadho wuxuu gaarayaa wixii cilmigii uu profession ku noqon lahaa professional wax ku shaqayn lahaa buu raadinaya marka asaaska hore hadduu ka xumaado imika hadda dadaal weydaan hadhow toole waxaad dareemi doontaan marka jaamacadaha meelaha gaadhaan inaad daciif tihiin baad dareemi doontaan marka wax wanaagsan maaha imika alxamdulillaah waxyaalaha ardayga wuxuu sahlay inuu wax ku barto way fara badan yihiin hadda moobeeladan aynu sida xun u isticmaalayno arday badan baa moobeel haysataa laakiin si aan wanaagsanin baynu u isticmaalnaa sida fiican haddaad u isticmaasho cilmiga aad ku barato mesela waxbarashada aad ku isticmaasho wax badan baad ku baran kartaa annagu fursadaha berigan ciyaalka ahinaanu yaryarayn fursadaha maanaan haysanin laakiin fursado badan baad haysataan marka waxaan odhan lahaa dadaala waanada laydin siinaya ku camal fala qaacido runtii nebigu sala allahu alayh wasalam ina bari haddaad isticmaashaan waxaan aaminsanahay qof walba inuu guulaysanayo dad formulada isticmaashaan formuladaas waa maxay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah micnaheedu waa maxay wixii ku anfacaya ku dadaal adugu camal laymo shaqee weeye shaqee dadaal wastacin billaah ilaahay baryadiisana ku daro ilaahu i kaalmeedhe haddaad labadaa isku dartaan waad soconaysaan ogaada madaxa ku haya qodobkaasi ixris calaa maa yanfacuka maxaan idhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah formuladan ku shaqaynana waa formulada wixii ku anfacaya ku dadaal ilaahayna bari markaad wax akhrisanayso ilaahay i kaalmeedhe ilaah waxbarashadayga u kaalmeedhe ilaahay goor walba bari haddaad qofka ilaahay kaalmaystaa ilaahay rabbi subxaana wa tacala wuu u kaalmeeyaa waxba hadalka badin maayo waa layga dambeeyaa إن شاء الله تعالى وحن ورجينا أرض ذا خير بدل ما ورجينا ما أنت مرت اللسينا يو إذن كان وحن ذي كسوينا إن أتكسر مرتان كواسي مركز دم هذا على هذا نتكسوينا معمول كيو محوها ينوسو أبابولي هاوش ينوسو أبابولنا خير الله سيهول فعم بينوسو قبتين dhammaan maamulka guud iyo maamulka iyo macallimiinta kormeerayaasha ardayda dhammaan aad baan idin salaamayaa inta ka dhacay kulli sidii kormeerkii iyo macallimiinta bay noo sheegeen waa markii ugu horeysay madaaris furqaan waqtiga acmaal sanaha ardayda ugu sareysa la abaal mariyo marka waxaan leenahay maamulka guuto sunno wanaagsan iyo noo jeexay insha Allah taala sunnahaana de waynu dhiirigelin oo halkaas aynu ka hano wax ma noqon doono insha Allah taala kii ugu dambeeyay wuxuu noqon doonaa sunno la sii wado kulli waa ardayda la xusaya kulli waa arday kooban imtixaankuna waxa weeyaan wuu istaba socdaa oo kii kale waa inaga nimanka sugaynaa marka waxa inagu waajiban inteena kale in aynu ku tartanno oo aynu imtixaanka nimanka soo socdaa ee dhowr ka cishay ka areen dee ragga meesha soo fadhiya ilaa looma qorin miyaa loo qoray inaynu ka qaadno oo aynu dadaalkeeda la nimaadno kaasina muxuu ku imanayaa dee waadoo waqtigaaga jadwal garaysta oo kolley nabada waxa xagga ciyaartii waxa ku badan qolinka yarna ciyaarta ku badan qolinka waaweynna iminka wax badan baa soo kordhay oo baalka la sheegayay laab salaaxa yalla habeeniyo baalila yalla salaaxaya marka inaynu dadaalo oo aynu waqtigeena jadwal garaysano oo aynu ku xisaabtano akhriska badan jadwalka uu sameynayso ayaa ku anfacaya oo xagga maadiga iyo diinigaba aynu xoog saarno marka waxaanu idigu dhiirigelinaynaa inaynu dadaalka halka ka sii wadno aynu xoojino oo aad ka muuqato goobta aad joogto aad ka muuqato iskuuladayna tartamaya aynu ka muuqano dee dalkan aynu ka muuqano waayo in badan waad maqashaan iyadoo marka madaxdu ay la hadlayaan ardayda ay dhaadaan dee madaxdii berri baa tihiin waa dhab dadkan hore markay socdaan hadhow dadka mustaqbalka iyo hadhow madax ka noqonaya idinka waa idinka uun marka inuu qofku mustaqbalkiisa uu dhiso oo uu maaragtay hagaajiyo dhismuhuna waxa weeyaan hadda la bilaabayaa oo guriga marka la bilaabayo seeska ka bilaabo Soomaa dibadna markaas laba la saaraa ma jiingada laga yimaadaa marka qofkii xagga sare doonaya inuu gaaro
waa inuu seeskan imika dhiso oo guriga hoosta ka soo dhiso oo waxbarashadiisa iyo wixiisaba uu kor u qaado kolley intaasaan idigu dhiirigelinayaa asalaamu calaykum dee roobna waa idin hayaa oo tixtixna waa jiraa ka insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala maanta kulankan inoo suurtageliyay inoo qabsoomo mahad ka bacdi waxaan salaamayaa marka hore oon u mahad celinayaa maamulaha guud ee dugsiyada alfurqaan maxamed maxamuud nuur oo waqtigiisiina soo siiyey inoo jooga kormeere maxamed daahir rooble iyo kormeere khaliif sheekh cabdiqaadir axmed daawud xirsi maamulka qaybta hablaha macallimiinta qaaliga ah ee runtii aynu iyaga hawsha wada ardayda kaalmaha galay ardayda kala fadhida dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi xafladan maantu marka waxyaabaha inta badan la sameynayo structure waxaa la dhahaa semi structure iyo structure caadi kaliyiin xafladeena in yar waxay kaga duwan tahay xafladaha kale ardayda imtixaanaadka bilaha ahaa ee aynu qaadnay waxaa ardayda laga qaaday wixii ay soo barteen halkaa waxaan kusoo dejinnay maalin ku dhejin jirnay hal fasal waxa laga yaabaa ardaydan la yaabanaayeen maxaa halkaa lagu dhejinaya fasal 3 isku dhishinaanay maalinta hadda lagu dhijinay class kale 3 isku dhishinaanay marba fasal lagu soo dhijinay ardaydu ha ka bogtaan wixii ay shaqaysteen waxa markaa ilana noqotay ardayda kaalinta koobaad ardayda gashay in la abaal mariyo iyadoo ay noo soo socoto tii dhammaan kaalmaha iyo akhlaaqda iyo ardayda suuban la abaal marin doona ay soo socoto laakiin tan ay tahay marka la afurayo maxaa sambusa lagu sugo Soomaadeen cashada Sooma waa sambusiyi marka ardayda wax looga baahan yahay waxa farintan dirna wax weeyaan imtixaankan haddii aynu kaalmihii koobaad abaal marinay imtixaanka dambana ay soo socdaan kaalmo farma soo socdaan bal hadda message-ka inaad adigu garato ardayga iska dhex fadhiye wax badan keeni kara ee aqoontu ku jirtaa inuu dadaal sameeyo oo keena kaalmaha sidaynu ogsoonahay saafirayna aan u sinayn been ardaydan u sinayn ama baniaadamka aan u sinayn arday kasta waxaa looga baahan yahay inuu dadaal sameeyo oo laba arrimood ka fikiro koow waalid baa ku soo diray wato sama qof bila waalidna la fadhiya gurigaad ka timid ambassador baa tahay xaafadiina ambassadorka u jooga furqaan baa tahay ambassadorka u jooga furqaan xaafadiina halkan baa tahay cilmiga halkan lagu dhigo inaad gudbisaa loo baahan yahay oo si gudbisa xaafadii oo naftaadana ku anfacdo halka waxaan ku aragnaa inta badan arday daaburka qaadanaysa arday kooban baa daaburka inta badan samaysa halkana waa halkan janjarta ka sii fuulo marka insha Allah hadalka waxa noo dhameeyay madaxdeena sare noo dhameysay waxaan ku dhiiri gelinayaa labada aid oo iyagu sanadka imtixaanka shahaadiga kaligood baan gala geliyeen labada aid ardaydu aad bay u dadaalayaan dadaal laakiin ka sii farabadantaa ayaa laga doonayaa marka aad u fiirsato waqtiga soo ordayo shalay ma baahan halkan markii lagu lahaa way noo bilaabay duruustii wax alla wax ka durtuma ka waqtigii naga dhamaaday haddii alla ka dhigo khamiis iyo jimce maalmaha ka dambaysa haddii alla ka dhigo waxa imtixaanku waxay noo bilaabmi doonaa wiil ka soo socda sidoo waan soo dhajin doonaa haddii alla idhaahdo halkaa waxaa markaaba kugu dhammaaday fatro wixii aad shaqaysatayna waa shaqaysatay inaynu baraarugsunaano ardaygu baraarugsunaadana doonaya uu baraarugsunaado ku baraarugsunaato waxbarashada ardaydana waxaan leeyahay hambalyo idinkuna waxaad leedihiin insha Allah maasha Allah inaad tiraan baa muhiim maasha Allah waayo de waa hubka lagu dagaalamo ninkii aynu garanayno soo ma maasha Allah baan u baahanay far badan aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta ciladeena kala jirta wax weeyaan layrkiina way naga go'an yihiin marka halkan microphone-ka ma isticmaalaan waqti arkaya in badan waxa laga yaabaa inay yaayeen war microphone-ka maxaa siya layrka naga go'an ha yaabin arbad fahamta
marka talabaadna waxa weeyaan dee raxmaddii bay noo daacisa insha allah raxmaddana iska dulqaato kolle ku heel badan baa jira ardaygu inta leegi aad buu ku leeyahay markaad baasha laamantii soo cunto waad soo kullaanaysaa ilaa inta soo socotee ila bas ma soo raacna badankeenu waa ku qaboojinaysaa biyahan ku qaboojinaysaa alxamdulillah weeyaduna cadceeddii way maanta way nala saayirtay soo ma ya dee maasha allah malena aad badan salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asaaka u soo diyaar garoobay midda kale waxa sii jirta aanan ogeyn xitaa halkan lagu soo dhaweynayo imikun kidis laga dhigay kidis to kidis bay noqotay marka sidaas ay tahay haddana waxaan isku dayaa bal saaka oo jawga aad u wacan yahay oo saaka farxadeed ay waagu inoogu baryayba haddana inaan aniguna bal kala qayb qaato farxaddaas oo aan dhexda kaga dhaco guro ka fuul hadalkaygu haba ahaadobe inkastoo ay iga horreeyeen dad aan jeclayn inaan hadalka aan kaga dambeeyaan jeclayn meel hooyada ayaa aabbaha ay ka hadlayaan wax kaga wada hadlayaan haddaad iskaga soo dhexdhacdo dhexda kaga soo boodid dee waa wax macquula ma aha dee marka bal anigoo ayagana ka raali gelinaya waxaan isku dayaa bal haddana laba kelmadooda qura inaan ahdo anigu waliba waqtigana ilaalinaya soo koobaya haddii aan si toos ah u soo abaaro xafladeenna saaka waxay daaran tahay ardayda kaalmaha ku guulaysatay ee mutaysatay in wax jaysad la guddoonsiiyo waad aragteen oo ardayda inta badan jaysada lama siiyo ardaydii sanadkii hore baxday lama siiyo lama idhaahdo ardaydii sanadkii hore naga tagtay aynu u yeedhanayno wixii inaga mutaystaan sanadii inala joogaan aynu siinana lama idhaahdo laakiin waxaa la idhahdaa ardayda inala joogta ayaynu waxay naga mutaystay aynu siinana taa macnaheedu waxay ka turjumaysaa kuwa hore waxba faa'iido ma layn la siiyo laakiin kuwa hadda jooga waxa ay la joogaan inay ka muuqdaan ayay ka turjumaysaa oo ay hore uga sii wadan barta ay joogaan halka marsan hore uga sii socdo weeyaan ayagana waxa leeyahay maasha Allah halka hore uga sii socda kulli maxay ahayd rag badan oo inaga mid ah ayaa la guddoonsiinaya maxay ahayd ninkii aad ku ag fadhiisan jiray saaka wax la guddoonsiinaya aniga Cabdiraxmaan Axmed Durba igu jira halkaas fadhiya iskursi baan fadhiisana anigu kuma jira saaka kaalintiisa ku jira saaka waxaan ku lahaa chance baan ku galay hal sawir kula galay baan ku lahaa dadka sarreeya marka la helo hal sawir baa la galay marka intaasaan kaga baxay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad mahadsantiin waa hagaag hadalkayga haddii waan soo koobayaa roobkii baa soo daatay waxa weeyaan waa farriin nin walba loo diraayo ardaya macnihii waxa weeyaan anigu dee halka dambuun baan fadhiyayaa oo xagga hore ma geli karo dee waxay muujinaysaa un dadaal xumo marka arday walba waxaa ku waajiba inuu halka hore u tartamo xagga hore oo aan lagaa horrayn waayo waxay kaaga baahan tahay dadaal waxaanaad ku gaadhaysaa arrintaa oo aad ku xaqiijinaysaa amuuro dhowra bal waxaad isweydiisaa inankan imbika kaalinta koowaad galay talow arrintan miyuu ku dhashay ma hooyadii ma markii uu dhalanayuu ku dhasho arrintani waa arrin dhalasho ah ee maya arrin dhalasho ah maaha arrintani waa dadaal marka laba saddex qodob baan kuu sheegaya dadaalka aad ku samayn kartad khayrka aad ku hiigsan karto kow horta marka hore xaqii iyo waajibaadkii uu ilaahay ku saaray subxaanahu wa tacaala muuji oo ilaahay ku xidhnaw waxaa laga yaabaa inaanad tukanba waxaa laga yaabaa inaad xaqi waalidku kugu lahaa iyo hadal wanaagsanba aanad ku odhan waxa laga yaabaa waajibaadkii ilaahay ku saaray wax badan inay kaa dayacan yihiin dee markaa ma hagaagayo horta marka hore waa inaad alla ka cabsi leedahay iyo taqwo ood ilaahay ku xidhantahay markaasoo ay arrimahaaga oo dhani hagaagayaan oo ay kuu toosayaan oo aad wixii mustaqbalkaaga aad ka qabsan lahayd ilaahay kuu fududaynaya qodobka labaad waxa weeyaan waxaanaad qabanayso dee cilmiga waxa lagu gaadhaa dadaal haddii aanad dadaalayn oo buugga intaad soo qaaddo halkan dhigto hadhowna intaad haf ka siiso miis yaroo guriga yaalla ku dhex tuurto dee waxba maa taraansanay culays umaad isi saartay markaa taasina waxaa loo baahan yahay dadaal waa inaa waxaan lagu soo dhigay ninkani miyuu ku dhashay wuu ku ag fadhiyey macallin baa wax idiin dhigay isku fasal baa tihiin isku grade baa tihiin meeshu casharada uu macallinku bixinaya isna wuu kula qaataa adiga maxaa mar walba dhiig ku geynaya ama si bal hadda su'aasha isweydii waa dadaal xumadaada ayaa keenaysa markaad ilaahay ka cabsato waa toosaysaa marka labaad marka dadaasho ilaahay halkii dadaalkii aad u socotay iyo hadafkaagii waa ku gaadhsiinaya tan saddexaad waxa weeyaan waa inaad ku sabraysaa waxaan
haddaad labcalabca tahay oo qadaadkaba xaggaa waalidku kaa soo riixayo macallinkana halkan aad ku dhibayso kolba xiisada dabadda lagaaga soo tuurayo dee kumaad sabrin arrintii iyo ujeeddadii aad lahayd ee ardaynimo mana xaqiijin karaysid hadafkaagii qodobka ku sii xigaa waxa weeyaane afraad waxa loo baahan yahay inaad waxaan xiisaynayso deedo raqbo u hayso haddaanad wixii xiisaynaynba dee macno badan kuu samayn maayo bal adigu buug isku soo rarana doonayno maalin walba warya orod tag gurigii waxaan u jeedaa iskuulkii taga wax soo dhigo qafar waad soo cararaysa halkan aad imanaysaa haddana miyaa laga fasaxay orod baad ku tagto meel baad dhigto wixii ma daalacanaysid dubuguma noqonaysid ma akhriyaysid ma muraajacaynaysid ma dadaalaysid su'aala intaad ka soo dhex saarto macallinkii ula iman maysid bal adigu waxaad qabatay isweydii waad tagtaa waad timaadaa maxaad qabatay weli macallinkaaga intaad su'aala soo qoratay intaad wax soo akhriday ma ula timid oo ma tidhi bal macallin masaa'ilkani way igu adag yihiin iyo xallil weli ma tidhi yaa maxaad qabataa bal adigu isweydiiyo sidee baad u gaadhaysaa ninkan ilan kumuu dhalan sidane dadaal buu ku keenay akhris buu ku keenay daalacashuu ku keenay wax akhris buu ku keenay haddaad adiga intaa lagaa waayo dee meel gaadhi maysid waayo waxaa la yidhi man jadda wajad waman saraca xasad soo maaha man dalaba alculaa sahira layaal dee haddii kale hadda lama odhan ninka doonaya meel sare inuu gaadho waa soo jeedaa baa la yidhi wuu soo jeedaa habeenkii hurdada wuu yaraysaa macnihi waxa weeye dee dadaal istaba socda oo kala go' lahayn ayuu ku dhammaaday raggooda bartameen waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay subayl xasan aadan subayl soo dhow maasha allah maasha allah maasha allah waa maasha allah dhaha kalaaska form 1ka imtixaankii bay saasoo kale iyagula galeen raggu waa bartamay qalinkaa la wada qaatay waa la wada akhriyey waxaa lala dhaafi kari waayey cabdilaahi sacad maxamed waa foonka soo dhowow maasha allah dhaha maasha allah maasha allah صعب ardada waa ragga u sharaxan sanadkan waa kaliya ee ku jira shahaadiga ardada galaysa ARB ardayga ARB kaalinta u galay way duceeyeen maanta waxaan xanuunsanayaa laba cisho noomo min waxaan xanuunsanayay waa Cabdilaahi Maxamed Xasan aan u duceeyay ilaahay caafiya midha aamin way ARB ayay noo yimid ARB ardayga waxay ahayd laba jeesood qaata maanta laba jeesood qaatay jeesada kale insha Allah waxa loogu dhigayaa maalmaha soo socda waxa weeyaan Cabdikariim Faarax Axmed imtixaankiisa ku guuleystay waxa kale ku guuleystay ardaygaasi waa ardayda ugu soo horimaada iskuulka kow isaga iyo laba ardayo sabiya ayaa yimaada ardaydaasi cid kama soo horeyso markaan soo istaago aba maxamed soo istaago waa la taagayba gaadina ma soo raacin ما شاء الله ولنا ما شاء الله ده ما شاء الله سودو عبد الكريم فارح احمد صعب دوتو ارتقال حاجه يشتغل معلم قرب يشتغل حاجه سوتشي وحسبنا كالين قالي او خلاص كلنا سبنه سو كرسان ورسبنا من جرين سبن iyo wax kaga duwan yihiin horta waa niman tafa nimankaasi kaalintii laba nin baa kaalin isku qabsaday tuugi qaar baa isku qabsaday tirigi nimanku wada bartayeen markaa laba arday baa kaalinta koowaad wada galay Axmed Xaamud Axmed iyo Cabdiraxmaan Xasan Axmed labada soo kacan ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله بدنا فكرنا سايين وش لا يستم أرتقى 7B وأرتقى أستاذ حسن عبد الكريم كشكيني وعبد الرحيم علي موسى عبد الرحيم سودو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حاجة سوتشيس أنت سوا كالمين بعد شراء الله شيء سوا كلام بحد دونيونا ترى ما حنا قريان قفي وصل هذا في عنابه وصوص عطا قفي وصل هذا وانا سنة إلى بقى ذكاء المريض لكن مريا وحانو ما أنت هل كان نأبى المريض بدون سنة سنة كان كان سوق الله أفتر كورونا كبعدي دابور كأردقي man of the match man of the دابور سوق كرزان وكما أحمد وقريان ده أحمد علي ياتي سودو تعب ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله أحمد علي ياسين وين اسكت برتوين هذه لما دور ربع الله شقية عبد السلام نور جامعة كلا والله شقية سونا ورنتي كما بدنا لكن ده استغنى وصوص عطا كله هذول هلاك سووا وقارية يربون حاجة شيء صور بيدك قاعد يقول حاجة شيء ركا يقول شوفوا رنتي يالكنين داور كقيب قاتل لسه كاي قرب أجا بونتيا وباكدم بونتيا وباكدم إسلام وقلي يقول لسه قليل سلوك waxay jirtaa hal arday oo activity schoolka ka qayb qaata barnaamijyada waxqabadyada nidaamyada hawlaha ya maxayga baarfahameen waa kuma ya waa Naasir Cabdiqaadir ku soo dhaw Naasir laftiisa walaashay way ما أنت واحد صلاحين وتعين كده واي واحد كلو صعب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واحد ما أنت صلاحين كل كيان هلكا قلنا ما أمرك ما